soosaarayaasha sirta kasoo jeeda Soomaaliyed midoobay iyo Larabij oo kasoo jeeda Mareykanka ayaa hindisay mashiinka raadinta ee Google 1998 halkaas oo ay markii ugu horeysay ku kulmeen jaamacadda Stanford iyagoo ka qalin jibiyay kulliyadda cilmiga kombiyuutarada sanadii 1995 waxayna labadoodu bilaabeen qoritaanka barnaamijka ay ku abuurayaan raadinta injineerka ee la yiraahdo backdrop iyo guushii ay ka gaareen iskaashigoodii bishii Janaayo sanadkii 1996 waxay iska diiwaan geliyeen magaca domain ee injineerka ee loo yaqaano google.com September 15keedii 1997 magaca Google ayaa markii hore loo yaqaanay Google waana tilmaamaya macno fara badan kaasoo injineerku damacsanaa inuu awaabulo kaasoo ka kooban magaca inuu noqdo Google kadib markii ay heleen shahaadadii koowaad ee cilmiga kombiyuutarada iyo xisaabta jaamacadda Marian sanadka markuu ahaa 1979 qoyskii Sirta waxay ka soo guureen barnaamijkii ee jaamacadda Stanford Larabij aabihii wuxuu ahaa professor cilmiga kombiyuutarada dhiga jaamacadda Michigan State University wuxuuna shahaadada ka qaatay jaamacadda ku taal gobolka Michigan ee injineernimada kombiyuutarada sanadka markuu ahaa 1995 wuxuu galay barnaamijkii qalin jibinta ee Stanford halkaas wuxuu kula kulmay daraasad la wadaagida Sirta waxayna damacsanaayeen in ay soo saaraan in kor u qaadaan awoodda ay ku soo saarayaan nuxurka xogta ballaaran ee la dejinayo internetka waxayna shaqadoodu ka bilaabatay runta PHA ee loo soo saaro naqshada cusub ee tiknoolajiyadda ee cilmi baarista Bring iyo Boch waxay heleen maalgelin shakhsiyadeed bartamihii 90-yadii waxayna kiciyeen ku dhawaad 1 milyan oo maalgashi ah qoys iyo saxaaba intaa waxay bilaabeen in ay shirkada Google Bring waxay noqotay shirkad caan ah taasoo tiknoolajiyadda ugu horeysay bartamihii 1999 halkaas oo Google ka heshay 25 milyan oo maalgelin ah taas oo si rasmi ah ay ugu dhawaaqday lacagta maalgelinta iyo waliba mashiinka baaristu waxay gacanta ku hayeen 500 oo kun oo su'aalaad ah oo maalintii 2001 Eric Schmidt wuxuu bedelay Bridge wuxuuna noqday madaxa guud ee shirkadda Google ayaa hogaamiyay 3 qofood oo kala ahaa Brin, Bob iyo Schmidt